بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد xildhibaanada golaha shacabka maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hoose ee Xamar maamulka degmada Kaaraan ee hogaaminayo saaxiibkay Faarax Cadaani oo cawada xafladan dhigay saraakiil xigeenada dableyda iyo alifleyda intaba ururada haweenka iyo dhalinyarada heer gobol iyo heer degmo bulshaweynta kala duwan ee ka socota degmada Kaaraan qeybaheeda kala duwan bahda fanka iyo suugaanta ee degmada Kaaraan warbaahinta dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu islaan kadib aada ugu faraxsanahay xafladan caawa ay soo qaban qaabiyeen maamulka degmada Kaaraan iyo bulshada degmada Kaaraan oo lagu xusaayo habeenkan taariikhiga ah ee habeenkii ugu horeeyay ee calan Soomaaliyeed laga taago dhulka Soomaaliyeed runtii reer Kaaraan bulshada iyo maamulkaba waxaan uga mahad celinayaa taariikhdaas fog ee gobonnimo jacaylka iyo xornimo jacaylka ay ku suntanaayeen weligood caawana ay halkaan intaaba bulsho ah ay isugu soo baxeen xafladan quruxda badan leh haddii aan dib ugu laabto xilligii gumaystaha dalkaani uu yimid gumaystahaas sidii dalka looga saari lahaa xornimona loo gaari lahaa waxaa u istaagay 13 wiil oo dhalinyaro ah oo runtii aqoonta maanta aan leenahay aan lahayn da'dooda ay yar tahay oo ay u dhaxayso 17 ilaa 37 qofka ugu weyn uu jiray waxayna ku guuleysteen dhalinyaradaasi in dhammaan Soomaaliya oo dhan ay xor ka dhigaan calanka buluuga ah ee dhaxda xidigta cad ee shanta geesooda ay kaga taalana laga taago dhalinyaradaasi waxay aasaaseen markii ugu horeysay 1943 naadi la yiraahdo SYC ama Somali Youth Club naadiga dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama gumaystuhu uusan ogolayn in urur siyaasadeed dalka laga dhiso kadibna 4 sano kadib 1947 waxay u gudbeen ama u xiibsibteen inay urur siyaasadeed ay u bedelaan oo ay ka dhigaan SYL Somali Youth League wixii markaas ka dambeeyay waxaa u bilowday halgan dheer oo ay u galeen si dalkan iyo dadkan ay xornimo u qaataan gobolada ayaa waxaa loo kala diray wufuud ka soo shaqeysa xornimadaas gobolada qaar nin loo diray ayaa gumaystihii dagaal la galeen markuu meesha tagay si bulshadii wacyigooda kor ugu kaco wuxuu furay iskuul dadka ay wax ka bartaan gumaystihii iyaguna waxay sameeyeen ay fureen iskuulaad kale oo dadka lagu siiyo lacag iyo raashin si iskuulkiisa u dumo iskuulkiisii sidaas ayaa caruurtii looga baxsaday iskuuladii gumaystahana la geystay warqad ayuu soo qoray
oo saaxiibadiisii xamar joogu soo qoray warqadaas waxaa ku qornaa aayad qur'aan ah oo macnaha koobaysa dhacdadii uu la kulmay aayaddaasna waxay ahayd innii dacawtu qawmii leylan wa nahaaran falam yazidhum ducaa'iya ilaa firaara waxaan dadkayga u yeeraaya habeen iyo maalin laakiin waa iga kala yaaceen markay warqaddii halkan soo gaartay madaxdii ururka SYL ma dhihin isaga soo carar meesha ma dhihin waa lagu beddelayaa aayad kaloo qur'aan ay ugu jawaabeen oo ahayd fasbir kamaa sabara ululcasmi min arrusul u sabar sidii shantii ululcasmiga ahayd ee qur'aanka lagu sheegay ee rusushii ilaahay uu soo diray ahayd ay ugu sabreen dadkooda kadibna ay ugu guulaysteen sunnadii ayuu raacay wuu ku sabray kadibna isagaa ku guulaystay halgankaas dheerna wuxuu ku soo dhammaaday in caawo kaleete 26 juun gobollada waqooyi ee Soomaaliya calanka laga taago xornimadoodiina ay qaataan kadibna iyagoo calankii wado ay koonfur yimaadaan afraabeen kadibna gobollada koonfure ee iyaguna saas ku xoroobeen 1 Juulaay halgankaas dheer ayay aabbayaasheen iyo awoowayaasheen u soo mareen si dalkeena oo xur u noqdo caawo kalena aan meeshaan ugu xafladeeno annagoo ah dawlad calan leh oo dunida ka mid ah haddaba maanta oo ay dalku haystaan argagixiso caalami ah oo dalkeena ku soo duusho dibadda laga soo diray maxaa nala gudboon haddii aan nahay halgamayaashaas ubadkoodii iyo dhiiggoodii iyo xinjirtoodii iyo dheecaankoodii inaan waddadoodii raacno una istaagno in aan dhammaanteen dalka ka xurayno oon ka saarno argagixisada waad ogtihiin dalka waxaa ugu sarreeya madaxweynaha jamhuuriyadda ulul amrigii dalka waaye isaga ayaa iska leh inuu iclaamiyo dagaalka nimankaas 2 sano muddo hadda laga joogo ayuuna iclaamiyey ilaa haddana wuu socdaa reer Kaaraan waxaan ku ammaanayaa in degmadooda ay ka ilaaliyeen cadowga argagixisada ah Kaaraanna ay tahay degmada keliya oo tiro ka dhowr jeer shacabkeedu argagixiso wax ku dili rabtay ama ku dishay aan lala sugin ciidamada oo ay shacabku gacanta ku dhigeen reer Kaaraan haddii ay xuraysteen degmadoodii cadowgii ay ka ilaaliyeen aysan guryaha ku qarinin kii wax samayn maagana ay gacanta ku dhigeen intaas ma ku filan tahay bas waxaa laga rabaa dalka oo inay ka saaraan waxaan ku balansanahay caawa kadib inaan hub ka qaadano qof walba oo naga mid ah dagaalkaas uu galo dalkeena dawladnimadiisa inay taabo gashay hormarto waxaa hortaagan cadowga argagixisada ah dalkeenana wuxuu ku jiraa jabtar 7 wuxuuna uga bixi karaa amniga oo aan sugno oo aan cadowga ka saarno dalka dastuurka oon dhammaystirno xildhibaanadana diyaar waxay u yihiin dastuurka dhammaystiraan kadibna aan aadno doorasho toos ah oo qof iyo cod ah halkaas ayaan jabtar 7 uga baxaynaa dawladdeena ku hormaraynaysaa waxaa noo ballanay 3daas tallaabo inaan qaadno amniga sugno dhammaystirno dastuurka qof kastana codkiisa uu ku soo doorto xildhibaanka asiga uu rabo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet